dhiiga kala xirmay muddo kadib waa igu soo kaceen marka hadda bararaa jira labadan lawi geesiyaha ah taasoo marka u sababay dhiigii kala xirmay iyo nerve system ay isku bedeleen hadda markaan kacayo kale iskay ma u kici karo inaan saa kursi u qabsado oon saa u kaca weeye lugtana marka iigu daran waliba markaan dhaqaaqane waa laga garanayaa socodkayga marka waxaa keenaya macnaha xiritaankii kala xirmay dhiigga iyo waxaas kala xirmay tan kale markaan rukuuco ma jiro lowyaha dhulka intaa ma dhaafin kara lowyaha intaas hadda ay yihiin ma dhaafin karo macnaha waa la ii geystay weeye macnaha katiinadii meesha la igu xiray marka gudahana barar zaa'ida jira tanna sidoo kale weeye barar weeye lugta hadda intaa ma dhaafin kari marka waxa ku qasbantay inaad kursi ku tukato kursigan ku tukaday arkaysa ta markaan ku tukanay kursigan ku tukaday waan 2 sano saasana kursi ku tukaday marka hadda kicitaanka awal dadka caadi u kacaan laakiin anigu waa inaan kursiga saa u qabsadaa saasaan u kacaa wey markaan 2 daqiiqo socdo bay lugta ii fiicnaanaysaa ayaalna waa mahadsan tahay run ahaantii aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaato barnaamijkii muddo socday ha noolaato oon ka mid noqdo dadka maaragtay wareysiyada bixiyey really barnaamijkan muddo sanada laga soo wareegay waana aamusnaa waxyaalaha aan la aamusnaa waxay ahayd ma jirin fursad hadda sidan oo kale jirto wadankana wuxuu iska ahaa xilli ciriirina waa lagu jiray dadkuna ma jirin nidaam dadka u dhaxeeya oo bulshadu ay wax fahansiin karo gaarsiin karto markaan arkay wareysiyo badan oo dad la yeelatay oon aad u fiiriyey waxaa ii soo baxday shakhsi ahaantayda wixii aniga aan ka ogahay nabad sugidda NISA iyo waxyaalo badan oo anigana soo dhex maray iyo waxyaalihii dagaaladii Jubbaland qaabkii ay nimankan u rabeen inay Jubbaland u dhibaateeyaan iyo qaabka ay rabeen inay ku soo maraan iyo dhaqaale badan oo ku baxay wixii aan ka ogahay shakhsi ahaantayda aan goobjoog u ahaa inaan si aniga oo faraxsan inaan kala hadlo ummadana aan u bandhigo si ay u arkaan ummadda waxyaalo badan oo baraha bulshada yaacaya inay inta badan 80% aysan run ahayn xaqiiqda dhabta ay jirta waa waxa weeyaan qofka waxaasi ka warhayay baa ka hadli kara dadkuna inay waxa la yiri iyo wuxuu hebel yiri wax lagu dhisto oo bulshada lagu maran habaabiyo oo bulshada lagu dambaajiyo waxa ka fiican qofkii joogay maartay makhraatiga nool ah intii dhimatay way dhimatay ama dhibaato la ku dhacdo ama maartay iska u dhimato dhibaatooyin badan soo gaareen bal dadka nool in ayaguba cadeynta rasmiga ayaga laga heli karo marka waa maasan tahay waan dhawahay runtii aad ugu faraxsanahay waayahay annagana waxa ku ballan qaadaynaa inaan barnaamijkaaga sida ay tahay u baahino adigana aad mas'uul ka tahay waxaad sheegayso kulay nin weyn oo qaangaar ah tahay marka hore waxaad iga sheekaysaa Cabdullaahi Maxamed Nuur waa kuma ka bacdina bal ila wadaag sheekada horta aniga waxa weeyaan nin Jubbaland u dhashaanahay Cabdullaahi Maxamed Nuur saraakiishii Jubbaland hore waan ka mid ahay from Raskamboni ilaa iyo until now ilaa hadda rag muddo hore soo shaqeeyay baan ka mid ahay laakiin wixii ka dambeeyay 2014kii wax shaqo oo rasmi ah oon hayay oo maamulka aanu hayay ma jirto waxaan ahaa un sargaal shaqo suga ah oo dadkiisa ku dhex jira wixii marka shaqo aqoontiisa oo meel kaga soo baxdana inuu si maartay ka qayb qaadan karo sheekadan marka bal taariikhdaada waad ii gud martay laakiin waxaan rabaa see ku bilaabatay adiga iyo wada shaqaynta hay'adda NISA ayaala runtii waa mahadsan tahay su'aasha waa very important dadkuna inay ogaadaan waa waxaan aniga u baahanahay waana sababta maanta meesha ay keentay sababtoo ah waxyaalo badan dadku isla dhex socdaan laakiin xaqiiqda dhabta ah waxa weeye ninkan ku hor fadhiyo maanta Soomaalina hor fadhiyo oo go'aansaday inuu ka hadlo bay ku jirtaa really anigu nin horta san ku sheegay from 2014kii markii walaalkayga la naxariisto uu geeriyooday wixii ka dambeeyay shaqo maanan Jubbaland ka haynin walaalkay wuxuu ahaa dadku Soomaalidu wuxuu yaqaanaa Ciise Kamboni balse magaciisa saxda Cabdullaahi Maxamed Nuur Alaakib uu ahaa xilliga uu asaga noolaa waan shaqaynaynay shaqo rasmi ah laakiin markii uu dhintay hadii culeysyo badan oo dhanka familiga iska jiray iyo bal maaragtay waxaan focus ku mashquulay dhanka familiga sanado kadibna markaan Jubbaland ku soo noqday
waxa weeyaan dee ma jirin xilligaas shaqo rasmi ah oo markaasi ay meesha taalla balse waxaa jiray un dee nin waxaan ahaa ka tirsan maamulka waxa weeyaan dadkiisana dhex joogo waxa weeyaan ciidankiisii iyo systemkiisa xilliguu rabana ku dhex jiro oo ku dhex maaragtay dhex taagan 24 saac dadkana wixii maaragtay shaqo iiga soo aado oo aqoonteeda u leeyahayna dee anoon la ii dirin inaan qabanayay marka wixii marka xilligaa ka dambeeyey from 2014kii runtii wax shaqo aan hay ma jirin marka madaxweynuhu marka hore shaqadaadu maxay ahayd shaqadeedu wuxuu ahaa qayb sirdoonka intelligence la shaqeynay Jubbaland waay marka walaalkaana muxuu ahaa walaalkay head office 3 region buu u qaabilsanaa 3 gobol laakiin gacanyarihiisa rasmiga ah barnaamijka shaqada u kala wadanaha waay marka hay'adda sirdoonka Jubbaland aad ka tirsanayd imisaad ka tirsanayd waxa xilligii la aasaasay ilaa iyo xilligaas waan ka tirsanaa waay marka seed u wada xiriirteen marka hay'adda nabad sugidda qaranka nabad sugidda qaranka runtii anu horta aqoon uma lahayn saraakiishooda waana saan kuu sheegay oo nin shaqo sugaan ahaa from 2014kii waxaa dhacday xiriirka nabad suu ku bilowday waxay ahayd runtii xilli waxaa jirtay Nairobi safar loo soo aaday madaxweyne Axmed Maxamed Salaam uu u soo aaday safar Nairobi kaasoo kulan uu jiray Fahad Yaasiin lagu qabanayo waana kulankii koobaad Fahad Yaasiin iyo Axmed ay maaragtay yeeshaan khilaafyadana markaasi cusboonaayeen sidaa darteed kulankaasi ayagoo jiro yaa maalin waxaa dhacday hotelkan waxaa lagu kulmayey Grand Balance la yiraahdo maalin waxaa dhacday marka Cabdiraxmaan Dheere waa shakhsi hay'adda ka tirsan NISA baarlamaankana ka tirsan labada dhinac buu ka tirsan yahay waana gacanyaraha runtii markii hadda la fiiriyo gacanyaraha rasmiga ah ee Fahad Yaasiin gacantiisa midig anigana aqoon hore oo dadkii raas kambooniinta isku lahaa baan ahay waa xildhibaan ka shaqeeya nabad sugidda labada la isku hayaa xildhibaan matala Jubbaland weeye oo dee kursigiisa Jubbaland uu yaalaa laakiin haddana saa ay tahay waa sargaal nabad sugidda oo Fahad Yaasiin gacantiisa bidix waa halkaan uu ka mishaar qaata halkaan uu ka labada shaqaba uu isku hayaa runtii shaqadiisa hadda xooga badanna wuxuu saaray dhanka nabad sugidda oo dee kursiga uu ku fadhiyo wax horumarana deegaanka kama jirin uu ka sameeyey marka halkan unbuu u arkay meesha ugu dhaqdhaqaaq fiican ama hadday interests gaar ka noqoto inuu ka fushin karo ninkaasan marka Nairobi isku aragnay runtii waa isalaanay salaan kadib waxa weeyaan ma Jubbaland baad ka shaqaysaa weli markaasaan waxaan ku yiri maya weli wax shaqo rasmi oo hay ma jirto shaqo ma ii haysaa on qabtay in Nairobi isku arnay ilaa qarankii jooga xildhibaan Jubbalandna waa dadkan matashaan kamid ahay sababtoo ah nin Jubbaland aan ahay sababaha ugu matashan waxa kamid ah inaad dadka ay garab siiso oo systemka ay garab siiso sidaa darteed si waxaan ula hadlay laba qof oo is yaqaanaan horena waan isku naqaanay aqoontiinu xagee ka bilaabanaysaa aqoontanadu waxay ahayd xilligii maxaakiintii kadib wuu ku soo biiray kambooniyiinta markii maxaakiinta ay burbureen wuu ku soo biiray wuxuu ahaa dadkii muqaawamada ee marka xilligaasi Etoobiyaanka la dagaalamay dadkii saraakiisha markaas ka dhex shaqeynayay kadibna wuxuu u gudbay groupkan Sheekh Shariif isbahaysigii uu Sheekh Shariif haystay halkaas uu markaas asaga dowladnimadiisa ka bilaabay marka shakhsiyan goorma isbarateen marka adiga shakhsiyan waxaan isbaranay xilligan ku sheegay 2008 ninkii markii wada shaqeynayay dhaxmar waqtiga xilligaas hadii laanta aan ka tirsanaa ee Raskamboonitu ka shaqeynayay marka wuxuu anigana xubin baan ahaa asagana wuxuu ahaa saraakiisha meesha ka shaqeynaysa kadib markii xisbi islaam iyo la isku darsadayna wuxuu ahaa ragii saraakiisha gaashaanay ka shaqeynaysay oo matalay Jubbaland halkaas oo asaga kaga biiray nin marka wuxuu ahaa systemyada qaabka isku sii bedelayeen bala sii janqaadayay iyo ahaa laakiin aqoon shakhsi ah oo idin dhaxmartay iyo wada shaqeyn gaar ma jirin aqoon guud leeyahay ka dhaxaysa aqoon guud waxa weeyaan nin iska yar waxaysan inuu ahaa waa guud ahaan waan kala socday laakiin de wax shakhsi ah oo maanta isdhaxgal ma jirin iyo wad marka hotelkaasaan isku aragnay hotelkan marka shir baa ka socda shirkaas oo ah Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Axmed ninkii marka qaybta hoose ummadda Axmed sugayso ama la kulmayso hoos ay wada fadhiyaan anigana dadka xilliga la socday Axmed aan kamid ahaa marka waa saradkee waan meesha hoosaan isku aragnay waxay ahayd 2019kii dhaxdiisii dhamaadkeedii marka Cabdiraxmaan Dheere marka erayadaasaan isdhaafsanay oo ahayd ilaa hadda ma shaqo bilaabin miya maxaa jira sargaal waxaad ahayd aqoontiisa u dhammaystiran tahay koorsooyin leh maxaa ku hortaagan maxay tahay sababta u shaqeyn laadahay marka waxaan ku uriyay fursad hadda Jubbaland kama jirto
axmedna in badan baan ka wada hadalnay ballanqaadyana waa jiraan laakiin dee haddii adi shaqo qaran adii hayso dee nin shaqo diyaar u ahoo raba inuu dadkiisii wax u qabto aqoontaan leeyahayna ugu shaqeeya baan ahay marka wuxuu igu yiri waayahay hadda shir baa socda shirka markuu soo dhammaado baan is arki doonaa marka wiishka waan isla soo raacnay aniga asaga marka qolka shirku ka socdo asaga aaday anigana meesha weytinka dhalinyarta axmed la socotay ay fadhiisato baan iyo dadka axmed kaalkaa u ah maaragtay gacanyaraha ee uu shaqada hoose u haya meeshay fadhiyaan baan yaan la fadhiistay oo meesha sitinka ah marka halkii baan ku sugay shirka marka muddo qaatay waxaa dhacday marka aniga oo meeshii fadhiya yaa wax arrin lama filana dhacday in albaabkii la furo kadibna axmed wiil la shaqeynayo cali anzal la yiraahdo yaa jiray loo yeero kadibna lagu yiraahdo cabdullaahi ha loo yeero marka aniga ma filaynin in maaragtay shir intaas miisaankiisa leh oo dee nin adana isqarinaya fadiyaysan xilligaa uu isqarinayay shirkaana shir inta badan qarsoonna uu iska ahaa in maanta anigoo cabdullaahi la ii yeero runtii naftigayga waxay u noqotay arrin lama filaan ah markii aan gudaha galay makhraati dadkao dhan baa dhalinyarta meesha joogtaa ka mid ahayd gudaha markaan galay waxaan u tegey madaxweyne axmed maxamed islaam oo taagan faad yaasiin oo taagan iyo cabdiraxmaan dheer oo taagan faadka markaa ma taqiinay adigu faadkii waa aqoon ahaan berigii dee tvyadan ka daawan jiray inuu nin u shaqeeya qadar tv qadar jalziira u shaqeeyay uu ahaa laakiin dee aqoon rasmiya uma lahayn weligaa ma idan kulmina weligay maana kulmin waay waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay marka sayd ku ogaatay marka inuu faad yahay faad inuu yahay aan ku gartay dee nin social media ku sii jiray wareysyada uu bixin jiray buu ahaa qof marka aanan garanaynin oo soo arkay ma jiri karin waay meeshaad soo gashay marka qolkii baan soo galay ayagoo wada taagtaagan saddexdooda taagtaagan marka waan salaamay runtii madaxweynahan ka bilaabay salaanta madaxweynaha salaamad tahay waxa faad yaasiin agteena ku xijiyey cabdiraxmaan dheer oo soo aranay waan salaamay marka cabdiraxmaan dheer hadalka bilaabay wuxuu yiri fahad waxaan ninkan ugu yeeray ninkan cabdullaahi baa la yiraahdaa wuxuu la dhashay ciise kamboni waa rag khibrad u leh dhanka sirdoonka iyo arrimaha intelligensiga waana nin dee waxa weeyaan koorsooyin international soo qaatay haddana wax shaqo rasmiya uu hayo ma jirto kolley dee inaad isbarataan baan ninkan aan maaragtay ugu yeeray adigana waa ka taliyahaagii isbarta marka waan salaamay runtii madaxweynaha makhraati ka ahaa wax ma ahayn hadda wax qofku waxaa la yiri iska jiri ma jirto marka meesha markaan isku salaanay waa ku faraxsanahay buu aragtidaada cabdullaahi soo dhawow haddana waan sii baxayaa marka cabdiraxmaan buu la hadlay wuxuu ku yiri ninkan insha allah waad ii keeni doontaa waan arki doonaa nin dhalinyaro ana waa loo baahan yahay oo aqoontiisa leh inuu maaragtay shaqada oo diyaar u ah qarankiisa inuu shaqeeyo inuu ka shaqeeyo saa darteed marka la soo xiriir cabdiraxmaan dheere adigana ninkan waad ii keenaysaa wixii ka dambeeya berri si aan isku aragno marka wax qarsoon ma ahayn madaxweynihii baa meesha taagnaa halkan waxaa ku jirta dhalinyartii saraakiisha ugu sarsareysay jubbaland baa meesha fadhiday markaan kasoo baxayna de waa maanta fahad baad la kulantay iyo maanta waa lagu yeeray maxaa jiray iyo niyo waxaan u malayn dhalinyartu xataa hadallada qaarkood ay dhahayeen waxaa ka mid ahaa inay dhaheen jubbaland kuraasta ay ku leedahay nabad sugidda ee qaranka halka ku jiro ilaa hadda aan jirin qof ka shaqeysa yaa laga yaabaa madaxweynaha sababtuu kugu yeeray inuu madaxweynaha ka dambeeyey maadaama aad shaqo raadinaysay in lagu gudbinaya xagga suu madaxweynaha bal ninkaasi dhanka federaalka annaga dadka noo joogo saraakiisha nooga shaqeyso ha noqoto marka nimanka halkaas horta xiriirkan ay ka bilaadayaan loo waay adna fursad u arkaysay maanta aniga fursad aad muhiim u ah baan u arkayay sababtoo ah waxaan raadinayaba shaqay ahayd jubbalandna dee shaqo maanan ku haynin nin iska joogo dee reerna meesha u joogo ilmana joogaan baan ahaa marka iska joogu macno iima keenaynin subax walba madaxtooye tagane axmed markaan is aragno ama qadaan isku aragno ama quraan isku aragno waxaan kala hadlayay waxay niyow 7 sanaan joogay ilaa haddana wax shaqo oon haya ma jirto dadkii iga dambeeyeyna waa shaqay wada bilaabeen maxaa i haysta maxaa jira marka maalin walba ballan way jirtay dee rajo ku nool waxaan ahaa un dee dadka axmed rajada ka sugo oo ballamaha loo qabtay kamid ah oo shaqo sugayaala laakiin waxaan u arkay fursad aad muhiim igu ah inaan dee maamul goboleed ka tallaabo oon heer federaal u shaqeeyo waxaan u arkayay runtii fursad qaali ah oo dadkii Soomaaliyeed aan ugu shaqeynayo hotelka marka waad ka tagtay maxaa xigay marka goormaad kala kulantay hotelki mar waa la kala tagay runtii meesha waa madaxweynaha iyo shirkii uu dhamaaday waxaan lagu kala tagay in Kismaayo la iskugu tagi doono oo Kismaayo macal prime ministerka khayra xilligaas prime minister ahaa in xagga la isku arki doono Kismaayo aniga markii ay kala tageen isla maqribkii Cabdiraxmaan Dheeraa ila soo hadlay marka
hotel Nairobi ku yaala Crescent Blue inuu ahaa kiiba marka yuu yiri bal niyo halkan noogu imo maqribkii waa next day marka waan u tagay meesha markaan ugu tagay qayb hoos u leeyahay kadibna wiishkiiba qof inuu soo dego oo kaarkiisa ku raacdo weey without car qof raaci kara ma jiro marka Cabdiraxmaan Dheere soo degay meeshaan tagay waqti kooban oo daqiiqada adu almost 3 minutes baan meesha fadhiyay faadku meesha waa isku aragnay dad badanna waa sugayeen oo meesha waa la wada sugayay faad waxa weeyaan dadku way xiiseynayeen marka aragtiisa in awood leh oo power leh buu ahaa marka wuxuu igu yiri arintaada Cabdiraxmaan Dheere ii sheegay Kismaayo shirka jira Kismaayo markaan tagno so ma iigu iman kartid meesha aan markaas aan dago habaan ku uridi meeshii maamulkii baan ka tirsanaa ku iman karaa okay buu yiri halkaas aan isku arkaynaa waxaana ku ballan qaadayaa buu yiri inaan shaqo aan ku sameynayo oo ku siinayo waxaana u baahannahay dhalinyarada adoo kale oo firfircoon oo raba inay dalkooda ku shaqeeyaan aqoontooda lena waan u baahannahay marka saa darteed waxaad niyadda ku haysataa in dowladdan annaga nabasuudan aniga meesha aan joogo inay tahay xilligii dadkii la baahnaa la raadinayay loo baahnaa la raadinayay saa darteed xaggaan ku dhamaysaynaa wixii hadala intaas unbuu iigu yeeray riile wax kale oo igala hadlay oo macno ah marka ma jirin anigana dee waqti baan soo gooyay distance badan baan soo maray marka dee waxa shaqadaasaan ku siin iyo waxaasaan ballanqaad iyo inuu niyadda ii dejiyo iyo inuu saacadan laga bilaabo uu ku howlan yahay inuu shaqo isiinayo mudaan buu ii sheegay kadib marka safarkii Muqdisho madaxweynaha safarkii waxaan raacay marka Kismaayo lagu noqonay madaxweynaha raacay Kismaayo ugu noqonay marka intaasaan isku keen dambeysay wax hadal Nairobi macnaha na dhaxmaro marka Kismaayo la tagay halka ka wad marka Kismaayo marka ayaan la tagay really Kismaayo marka waa mashquul badan baa jiray zaxmi ah Faad Yaasiinku saacad daqiiqadu ka dambeeyay prime ministerka isku diyaarad ma aysan saarnayn ayagu asaga casarkii buu yimid nin ciidankiisi wato oo kalsooni rasmi ah aan ku jirin waa u ekaa sababtoo ah ciidamadiisa xataa waxay isku dayeen inay meesha xataa uu degan yahay inay gudaha u raacaan kadibna waxaa loo sheegay meeshu inay amnigiisu sugan yahay amisoomna ay joogto ciidankii Jubbaland oo madaxweynaha uu diyaariyay oo rag waliba khibrad maarta khabiira ay meesha joogaan saraakiil aqoon leh saa darteed aan loo baahnayn waxa ay badbadiska ay wadaan kadibna meel gooni ah ayagu la dajiyay oo ciidan gaar uu la yimid ilaa xitaa ra'iisul wasaaruhu ilaa adiga 20 nin oo hubkoodu u dhameystiran yahay Shamsu Tarraa ku jiray marka nin ra'iisul wasaaruhu qof caadi u yimid amaanka ra'iisul wasaaraha waxa la wareegay maamulka la wareegay asay laakiin ma ahayn waa nin diyaarad gooniya ku yimid asay kaligiisa nin inta badan shabaabna iskama ilaalinaynin Jubbaland iskama waxyaalaha aad ku iska ilaalinaya waxa kamid ah kaamiro iyo wax la yiraahdo qof ama mobile ama wax inaba aad buu uga taxadiray kaamirada shabaab waxa ugu darnaa kaamiradaas marka waa la kulantay marka maalmahaas marka dadkii buu la kulmay ninkii marka asagii baa mashquul kala noqdayba ra'iisul wasaarihii meesha joogay waxaad moodaa wadanka u sareeyay xukuumadii inaan dadka focuska insaaraynin dadkii focus asaga ka saamay badnaa dadku macal wasiirada anaga noo joogay baa in ayaga la kulma asaga la kulmaan oo nin walba uu dhaho aniga hebel la yiraahdaa uu iska jeclaystay marka nin walba siyaasi wuxuu leeyahay ninkan ba aad bal la kulantid waa intaas ay wado ku baxday bas aniga marka ani ma raadinin kulankiisa waan ballansanayn adoo dhowr bari uu joogay marka maalintii ugu horeeyay oo dadka la kulmay maalintii labaad wuu isoo dalbaday kulankiisa inuu aniga ila kulmayo asagana dee markaasi uu Nairobi joogay wuxuu ballan qaaday xag markuu imaanay inaan is arki doono really waxaan u arkay nin qowl leh aniga macnaha markaasi waxaan u arkay nin diyaar u ah inuu ballantii uu iga qaaday inuu fulinayo aan marka rajo zaa'ida ay gashay oo ah inaan dee waxa weeyaan dadkaygana u shaqeyn doono shaqadii munaasabka ay ahayd aan heli doono marka ka tagayso Kismaayo marka asaga Kismaayo guriga wuxuu ka degay badda qayb gooniyo waxaa la dejiyay madaxweynaha uu dejiyay asaga u go'an balkoonkoodii ule marka inta badan dadka balkoonka qaybta banaanka balkoon bay leedahay waa dabaqa labaad balkoonkaas marka la soo galay albaab laga soo galaa Soomaa dadka marka wax dadka sugaya waxay ku sugayeen gudaha asaga balkoonka kuraas u taala marka dadka banaanka fadhiya waxa weeyaan way arkayaan ninka halka fadhiya markuu soo fiiriyo nin walba marka uu sii jeeday wajihaantiisa wuxuu ku sii jeediyay dhanka iridda balkoonka laga soo galo dadka dhabarkiisa unbay arkayeen marka ruux walba la kulmay marka laakiin halkaas uu kala socday hadda waxaan haystaa madaxweynuhu banaanka la wada fadhiyay oo ruux walba la kulmay Faad Yaasiin
indhaha lagu hayay waa la arkayay sababtoo nin saameyntiisa lana u ahaa meeshana dowlad baa ka jirta in la sirdoon bay lahayd Jubbaland nidaam bay lahayd marka waa qasab shaqadooda inay haystaan oo indhaha lagu hayay cidda ay la kulmayaan iyo cidda qaabka marka anigu waan la kulmay dadku marka daqiiqaday la fadhiyeen wax ka badan 10 daqiiqo ugu badan 10 daqiiqo la fadhiyay ani markaan isku yara daahnay almost 40 minutes that 5 minutes baan la fadhiyay ilaa dadkii banaanka joogay ay dhahaan maxay ka wada hadlayeen Cabdullaahi iyo Faad Yaasiin maxay is dhaheen reality-gana de waxay ahayd ninkaasi anigu waxaan raajicinayay ilaahay ka sokow ilaahay markii ilaahay baa shaqada bixiyay ilaahay baa wax walba bixiya laakiin waxaan u arkay fursadda aan u baahanahay in asaga ka dhex arkayo oo ahayd inuu asaga maaragtay gacanta ku hayo oo dowladda dhex u shaqeyso aad baan ugu farxay runtii si fiican buu i qaabilay laakiin wixii aan rabay inaan kala hadlo asagu inta badan focuska wuxuu saarayay arrimaha siyaasadda Jubbaland iyo ergooyinka ilaa xilliga ergooyin qaab lagu xuliyaa jiray oo soo saarayay xildhibaanada deegaanka saa darteed waxa weeyaan saxiixa ergada lagu soo xulayaa salaadiintu nin marka focuska saarayay su'aalo aan aniga i khusaynin oo siyaasi ah bay ahayd ka waran Axmed iyo rabitaanka shacabka waan u jawaabay waxaan ku iri Axmed markii loo fiiriyo hadda lagu jiro shacabku runtii way danaynayaan sababtoo ah xaaladda lagu jiro waa xaalad dagaal halkan maanta Jubbaland dadka la dagaalami kara nimanka shacabka meel iska saari karana asaga loo arkay sababtoo nin jabhada wadankana dee uu soo dhibaatooday Jubbaland buu ahaa duurka u soo galay xilli aanan jirin wax maaragtay taageero rasmi ah marka Axmed ruux walba wuxuu arkaa Axmed fursadda koowaad iyo fursadda labaad iyo fursadda saddexaad inuu asaga yahay runtii uu yaabay ariga markaan u jawaabay ma hubtaa buu yiri waan hubaa baan ku iri ka waran ergooyinka loo soo xulayaa ergooyinka waxaan ku yiri nabadoonna jira salaadiintii baa jirta wax qasaba ma jiro salaadiintii qaabkii uu de loogu talagalay ergooyin in lagu soo xulo yaa loogu soo xulay dad baana loo xilsaaray guddi baa jirta doorasho oo loo magacaabay madaxweynaha u magacaabay guddidaas haddii aad wax shaqadaada aad ka dhex aragto guddidaas aad kala hadli kartaa wixii ku saabsan arrimaha ergooyinkii qaabka laakiin de anigu mana wadana igama banaana waxaan aan kaaga sheegi karo ma jirtaan ku iri laakiin waxaan arkaa inay nidaamkii loogu talagalay guddida shuruucdii ay samaysatay ay ku socoto saas ergooyinka lagu soo xulayo su'aalaha kale uu weydiiyey waxaa laga yaaba uu yiri dadku waxay arkaan Axmed inuu horumar deegaanada xataa uu ka soo jeedo wax horumar uusan jirin sida Dhobley buu hadal qaaday Dhobley wuxuu yiri waa magaaladii laga soo taakulayay afmadow sidoo kale ay haddana aysan jirin iskuulaadkii iyo wax uu ka qabtay maxaa marka dadka ku kalifay inay 7 sano nin hor fadhiya in maaragtay waxna uusan u qaban lahayn maxaa jirta meesha ma qabiil ka jiru jiri meesha ma qabiil ahaan lagu taageeray in meesha wax qabad ahaan lagu taageeray wallahi waxaan ku deegaanku anaga ka soo jeedna meesha laga soo bilaabay Dhobley waa la ogaadan Dhobley kaaga bilaabay Dhobley way hormartay salaf kunteena ka dhisan baan ku adu ma tagin laakiin waxaad ogaataa baan ku aniga sirdoon baan adna sirdoon baa tahay warbixinada rasmiga aad helayso adiga waxa weeyaan 90% waxa weeye Jubbaland warbixinta laga soo siiyo waa qof uu lacag raadinayo warbixin soo siiyo qof lacag raadinayo warbixin soo siiyeen inta badan mid rasmi oo fadhida ma aha waxaad jecesho ku sheegay u marxabayso kadib lacag aad u siiso marka waxaan ku iri Dhobley waa laga shaqeeyay nidaamkeeda afmadowna waa laga shaqeeyay horumaraa ka jira iskuulada xataa waa madaxweynuhu dayactiray wasaaraddu u sameeyay wasaaradaha ku shaqo leh laakiin waxaan ku sheegay ma jirto nin 9 sano jooga meesha ama 8 sano oo waxba deegaankii ka soo jeedo u qaban inay sii jiraan shacabku horumaraan ku dadku hadda waa laga tagay qabiil nin walba horumar u rabaa deegaanada kale waxa ka jiro wada aragtaa baan ku iri marka taasan su'aashiisa ugu soo koobay wuxuu i weydiiyay dadku waa la caburiyaa buu yiri si saxaafadda oo kale waxaasi caburinta saxaafadda Axmed wuxuu diidan yahay buu yiri in runtiisa la kashifo oo wajiga u qarsoon la kashifo markaan saan ku iri meeshan saxaafadda ka jirta dhammaan nin walba warbaahintu waa sii daayay kismaayo waxa ka dhacay cid la caburiyay ma jirto hadda dad YouTube ka gasho oo waxa u baahan duu qarax ka dhacay hadii dad lagu dilay way baahinaysaa hadii nabadoon la dilay oo shabaab ay dileen way baahinaysaa marka wax caburin ah meesha kama jirto caburin waxa la yiraahdo Ethiopia wixii ka jiraan ku iri oo la soo tabinin hatta baahida rasmiga meesha ka jirto haday abaara ka dhacaan deegaanadu TV aanan baahin ma jirtaan ku iri ilaa meesha maamulka ka jira marka waxaan ku iri anigu wax caburin ah oo shakhsiyaanteeda aan arko ma jirto adoo su'aalihii badan oo kuwaas iyo kuwa ka badan yu isi weydiiyay iyo Axmed soo rabaa inuu ku sii joogo dadku badiil ma rabaan miya isbedel ma rabaan miya hal waji inuu hortaagnaado waxa weeyaan waxaan ku ornay siyaasad way waxan siyaasaduna sideedaba waxa weey qof walba markuu soo galay target uu leeyahay
marka su-aashaas madaxweynaha iskalaan ku uri adigaa weydiin kartaa inuu meesha inuu sii joogayo sababta usii joogayo inaad weydiiso laakiin asaga go-aanka uu leeyahay targetka siyaasadda uu ka leeyahay anuu ma ogi baan ku uri laakiin dee dadku inay ku faraxsan yihiin oo aniga aan ka mid ahay inaan ku faraxsannahay axmed inuu sii joogo waan rabnaa baan ku uri sababtoo ah wadankii waxa hadda ka jira iyo wixii ka jiri jiray ruux walba ogyaan ku uri kismaayo wixii ka dhici jiray wax bilaadanku ma ka dhici jirin baan ku uri meelaha qaarkood wuxuu i weydiiyey arrintii 7 nin la dilay ee halka 2 nin sheekhaasha loo dilay kismaayo 2 nin oo sheekhaala oo la dilay oo hal mar 7 nin loo toogtay dadku niyow sharci islaam miyaa lagu dhaqmay buu yiri dadku say maxaa hal 7 nin oo isku jifa ah in 2 nin loo dilo waxaan ku iri 2 nin ee la dilay waxa weeyaan sheekhaale ahayn baan ku iri adiga laga yaabaa inay kula jifa ahayeen maada ogo adin nafta waxa laga yaabaa ku iri dadka culayska saaraya in dadka la laayo inaad kamid ahayd hadda marka inaad su-aashii weydiiso ood tiraahdo maxaa loo laayay waxa weeyaan taasi waxaan u arkaa baan ku iri waxaad ogtahay inaad aniga weydiiso yaad taas waxaan u arkaa waad ogtahay jawaabteedana adaa haya marka uu qoslay wuxuu yiri maya waxaan la yaabay dee odayaashii dhaqanka meesha jiray 7 nin hal nin baa dilay ama 2 nin baxbad ku riday macquul gal mar kula tahay marka dad badan in la laayo 2 qof loo laayo waxaan ku iri waa lagu qanacsanaa waana sababta dilku uu ku yaraaday muqdisho wax ka dhacay waan artaan ku iri maalintii 5 qof 6 qof 10 qof oo innocent la dilaan ku iri shacab ah maalin walba maxkamadda dadkii dilay racfaana loo qaadayaa baan ku iri meeshan marka sharci islaamka si loo kala badbaado waxa weeyaan saysan u dhicin ba hebel aad dilay iyo hal mar aan ku wada furnay waxa weeyaan waxa lagu helaan ku iri amaan 7 nin la dilay sharci islaamkaana la mariyay ayagana wada qirtay oo waxay dhaheen waan anaga wada dilnay ninkan 2 nin marka waxaan ku iri su'aashaasi jawaabteeda waa taas laakiin adna waad ogtahay adaaba ka tirsanaa baan ku iri ragga la laayay qaraabada ahaydeen baan ku iri su'aalahaas iyo Ethiopia marka cadaalad darro dareemay meeshaas marka wuxuu dareemay cadaalad darro ma dareemaynin wuxuu rabay dadkii 7 nin la dilay dadkooda inay kacaan oo Axmed lagu kaco oo la rido oo dawladda la yiraahdo say 2 nin oo sheekhaala dad loogu dilayaa asagu marka wuxuu ka dhaxarkaa in macnaha wuxuu ka dhaxarkay fursad uu ka dhaxarkay laakiin fursadii ma way suuragali weyday oo sababtoo ah raggii walaay cid ka hadashay ma jirin marka su'aalo marka Etoobiyaanka qaabka markii la keenay iyo hadda dadka soo arkaan Etoobiyaanka Kenya maalinta dekada dhuxusha waxbuu i weydiiyey saytaan wajaw waxaan ku iri wax dhuxul hadda rasmi oo la raro ma jirto bari waa jirtay laakiin waa la joojiyaan ku iri waxaan loo joojiyaan ku iri Axmed intaysan xataa soo bixin baan ku iri UNHCR iyo dadkan aysan ka hadlin international community Axmed wuxuu shacabkii dadkii xataa dhuxulaha gooyn oo dhan uu la wada dagaalamay waa la soo wada xirxiraan ku iri booliska loo diray dhammaan waxa lagu tagay meelihii ay joogeen xataa waxa qaarkood baa laga soo qabtaan ku iri shabaab dhexdood in aysan dhicin dhuxul dambe aan la gubin dhuxusha taalla wadankana in meel iskugu keeno marka dhuxul dambe oo la gubayna ma jirtaan ku iri dhuxushan meesha taallana hadii waxaan ku iri wixii la dhoofin karina waa la dhoofiyay kuwanne dadka u baahan oo maaragtay dad baa bariiskooda ka raadsada deegaankaana u baahan oo deegaanka dhuxul baa loo shitaa Kismaayo marka dadkii baa wada gadanayaan ku iri laakiin wax dhuxul la dhoofiyay soo madaxweynaha u mamnuucay ma jirtaan ku iri lamana ogolaanay asaan ogolaanaynin waxa weeyaan nin walbana uu garanaya sumcadiisa wax ku keenaya maamulkiisa marka saasaan wajaha wuxuu arkay marka nin madaxweynaha difaacayo marka wuxuu wada sheekaysi dheer kadib waxa uu igu yiri marka aniga shaqadaadii waan ku bilaabay nabad sugidda hadda waxaan wadnaa buu yiri waxaan qorshe wadnaa buu yiri waxaan gelinaynaa buu yiri wadooyinka Muqdisho oo dhan CCTV camera marka waxay yeelan doontaa buu yiri laan gooni ah oo aniga hoos tagta halkaas shaqooyin badan ka soo beeday tan kale si qaybtan sirdoonka oo aniga hoos tagta ayadana waxa isbedel dhici doona marka waa ku baahanahay waxaan rajeynayaa waxa weeyaan inaan kulankan ku xigo uu dhaw uu mid dhow uu noqon doono taasoo aan uga hadli doono shaqadeeda waan weydiiyay waxaan ku iri arrimo siyaasadeed igala hadashay anna wasiir miihi sargaalna miihi hadda shaqa meesha ka jira awoodda aad su'aalaha ay weydiisanay jawaabteeda waan ku siiyey marka waxa aan aniga rabo oo baahideeda rasmiga waad garanaysaa baan ku iri shaqada ay tahay marka waxaan ka codsanayaa baan ku iri waxa weeyaan inaysan dhicin mar kale arrimo siyaasadeed inaad barnaamijkayga aad kala sii hadasho inaysan jirin sababtoo mana nin wax gacanta ku haya ma ahayn marka uu qoslay wuxuu yiri waa yahay okay may waxaan rabay si guud inaan ku weydiiyo qof walba oo yimaadana waan weydiinayay dad wasiiro madaxtooyada ka tirsan
ya anoo weydiinin bay ii sheegayay buu yidhi oo saasaan damacsanay qaabka wax ma damacsan una gacantan ku hayaa buu yidhi marka waxaan ku hadaad gacanta ku hayso inaad weydiisaba ma ahayn deegaanadii wixii waxaan rabay marka nin wuxuu ahaa adigu inta badan shirka muusan u imaanin xog inuu raadiyo iyo u yimid dad baana u shaqeynaya xogta la raadinayo oo maamulka tirsanaa maadaama adigana aad taqiinay sirdoonka iyo waxyaabaha la xiriira waanay kugu muuqan inuusan ahayn sirdoon ninkan ay ka shaqeynaya siyaasad wallaahi marar qaarkood waxaan isweydiiyaa horta ninkan ciddii magacaawday sababtoo ah ninkan waxaa weeyaan sirdoonku qaabka ugu shaqayn jiray 100% uma shaqeeya Fahad Yaasiin qaab dadban oo aad waliba uga dadban ayuu u shaqeeyaa way 100% waxa ii muuqatay Fahad Yaasiin inuusan barnaamijka sirdoonka waxa meesha u joogaba ama Soomaaliya ha noqoto oppositionku ku fadhiyo ama maamul goboleedyada kale markuu tagayo nin waxaan u arkaa siyaasadiisa inuu ballaariyo raba kursigiisana uu meesha uu joogana inuu sii joogo focuska iyo dhaqaalaha ugu badanna uu ku bixinayo inuu kalba dowladda iman doonto saa uu maartay uu dhex joogi doono kor ugu haysan doono nin laakiin anu ma arkin taliyana basugid ma arag laakiin marka kulanka ka bacdi fakarka kugu dhalanaya ninkaad la kulanto uu sanahay nin ammaanka qaranka ka shaqeynaya nin siyaasad lagu kula jiro aad kulankiina marka waa dhamaaday kulankana wuu dhamaaday waana kala tagnay madaxweynaha marka ay weydiiyay si kaftana wuxuu igu yiri ninka waa sarteen waad isku yara daahdeen waxaan ku oray ninka su'aaluhu i weydiinayay baan u sheegay waxna kama qarinin oo xaqiiqda ah ninka waxaan ku oray nin inta badan deegaankii iyo doorashada dadka lagu soo xulayo focuska saarayo ah anigana arrimaha shaqada marka u dambeysay buu si yara maldahan igala hadlay waana ku diyaarinayaa buu shaqadaada laakiin waxaan u arkaan ku oray nin waxa weeyaan barnaamij interestiga uu rabo waxa weeyaan ay tahay in uu ogaado warbixin rasmi xog rasmi ah taana waxa weeyaan anigu shakhsi la kulmaan ahaa wasiiradaada la kulmayaan ku uri oo hebel iyo kamid aan ku uri marka oo meesha la fadhiyay kuwaas uma weydiinaysaa xogta ay siiyeen iyo waxa uu kala laakiin anigu xogta rasmigana ma hayo waxaan ku uri nin uu shaqadiisa raadinayay wuxuu weydiinay uga jawaabay anigu arrimaha bulshada la weydiiyaan ku uri arrimaha bulshada waa uga jawaabay inay dadku wali still adigu rabaan inay meesha u sii joogtid laakiin wixii siyaasad ku saabsan rag baa meesha wasiiradaada meesha fadhiyaan ku uri marka kulankii waa dhamaaday kulankii uu dhamaaday axmed asaasaan ugu faafiyey marka wuxuu igu yiri Fahad Yaasiin Muqdisho soo raac nimankan safarka Muqdisho la iskugu imaanayo oo axmed madow imaanayo soo raac madaxweynahan u tagay waxaan ka codsaday safarka Muqdisho inaan u raacayo waliba anoona ka qarinin oo ku iri niyo aniga waxa weeyaan 7 sano ku hoos fadhiya wax shaqo oo rasmi ah oo ka hayo ma jirto dadkii iga dambeeyayna waa kuwa shaqada wasiisay anu ma garanayo sida aad ii yara maartay meeshaad iga aragtay adigana wax rasmi ah ima sheegaysid maalin walbana isbedel aan leedahay isbedel hadda bal nimankan wax kale kaama rabaan ku iri eraygan ku iri wuxuu nimankan waxbay ii sheegeen shaqadii waxbaa jirta waana heer federaal sida aan naqaanin Jubbaland dad bay ku lahaayeen sirdoonku marka Muqdisho safarka inaan ku raaco haddii la heshiin lama kismaayo waa lagu heshiiyey xaggan in lagu seexayo qorshuha shirka wixii inta lagu heshiiyo xagga lagu seexo marka waxaa iga muuqatay inaan nimankan fursad aan la kulmo waan haystay safarkan aan raaco madaxweyne axmedna aan barigan taalo oo ah in maaragtay nimankan uu dhaho ninkan hala shaqo la siiyo marka waxaan isku helayaa wax isku yara toosan oo shaqeynaya markuu ka aqbalay inaad safarkii la raaco uu iga aqbalay sheekadaadana wuu ogaa meesha ka bilaabato ahayd uu iga aqbalay runtii aadaan uga mahadcelinayaa si qiimo leh waliba safarkii habeenkan la hadlay waa subaxdii la baxayay dad badan oo wasiiraha isbuuc dhan ku dagaalamayay inay raacaan axmed iyo xildhibaano aniga habeen subaxii la baxay habeenkeedii bisan codsiga u furiyey marka waxaan u arkay axmed naftigiisa madaxweyne axmed inuu rabay inaan nimankaasi la shaqeeyo mar walba waa haysatay fursad aad kula kulanto madaxweynaha waan haystay mar walba fursad aan kula kulmo meeshii baan ka tirsanaa madaxtooyadii fursad mar walba aan soo galo meel kale oo la aadana ma jirin shaqo aan ahayd meeshii shaqadeedii ahayd kan meeshan ay ahayd kursiga axmed uu ku fadhiyo waa meeshii aniga aan shaqada aan ku lahaa marka waan ku qasbanahay marka xamara la tagay marka xamara la tagay waa kismaayo ka baxday madaxweynaha raacday xamara la tagay kismaayo ka baxnay runtii mayna filayn xataa dad badan baa xataa ka xumaaday oo safarkayga abaal baan uga hayaa madaxweynuhu maya dad badan la reebay anigana dad baa marka waxay isdhahayaan dad baa xataa igu yiri axmed waxaad tihiin dad ehela oo qaraabaad tihiin that's why uu ku accept gareeyay inaad u raacdo safarka
dad baa waxay u arkaan safarka madaxda la raacayo bas in hotel la dego shaqo dad wixii shirna ma galayaan hoteelada la iska deganaanayo ani laakiin de waxaan watay inaan ka hirgeliyo waxyaalahan oo shaqadan la sheegay bal inaan hirgelin karo qof waxaa la yidhi marka dad in la rabo aad lagu caawiyo waa inaan horta wax bilowdaa lagu arkaa inaad dhaqaaqayso si lagu caawiyo marka axmed baan raacay madaxweyne axmed waxaa la igu soo qoray dadka hoteelada lagu soo qorayay hotel waxaa la igu soo qoray city la yiraahdo city waxaa la yiraahdaa Royal Plaza city palace la dhigi jiray hadda laakiin Royal ay u bixiyeen oo habar khadiija ku dhow meesha xarunta nabad sugidda marka qol baa la dejiyay dhammaan hoteeladana waxa bixinayay nimanka nabad sugidda wax walba oo hoteelada degnaanshada amniga wax dhan saraakiisha yaasiin baa u qaabilsanaa oo hadda ninka taliyaha nabad sugidda yaasiin farey yaa u qaabilsan dadka hoteelada geynayay ilaa waxa weeye staafkiisa mas'uulka staaf qaas ku ahaa Fadi Yaasiin marka asaa dadka hoteelada kala geynayay kadibna anigu hoteelkaas lagu soo qoray shirarkii baa bilowday shirarkii markay bilowdeen anu rajada igu jirtay 90% ahayd maadaama xagga lagu soo heshiiyey in la iskula tago madaxweyne Farmaajo si loo seexo wixii lagu soo heshiiyey ilaa taliska nabad sugidda iyo prime ministerka meesha joogay waa la soo heshiiyey kadib madaxweynihii baa marka arintii heshiiskii ka hor yimid meesha waxaa dhashay marka iskhilaaf isafgaran waa wixii lagu soo heshiiyey baa shaki galay marka waxaan u arkay marka Fadi Yaasiinku Kismaayo inuu imaado fursad ay wahayd uu rabay laakiin heshiiska xagga lagu soo qaatay ma ka ahayn maaragtay daacad kama ahayn that's why because waxa uu Fadi Yaasiin wato Farmaajo ma diideen sababtoo uu saxiix lahaa marka waxaa halka aniga fikir ahaanteedan ka dhaxarkay maadaama xagga la isku arkay prime ministerkii madaxweynaha iyo golay wasiirada Jubbaland lagu heshiiyay nidaam oo la yiri xagga lagu wada saxiixaya Farmaajona waa ogolaanaya Fahd Yaasiin qorshiis bas uu ahaa inuu Kismaayo tago oo dhaqameedda xataa qaar buu arkay wasiirada inuu arko xogta uu rabanayo inuu xag ka soo helo shirkan la galay iyo waxan maqarsaar uu ahaa oo markii Muqdisho la yimaad baalka loogu dhuftay shirka uu cover u ahaa inuu asaga ma taqaan hawshaas ku qabsado asaga wuxuu rabay inuu meesha tago xuraamo wax meesha waa saan u fahmay aniga macnaha saan u analyze gareey way sababtoo aday waa hirgal la Fadi Yaasiin wuxuu daacad ka yahay uu hirgalayaa sababtoo wuxuu aaminsan yahay wax walba inuu asaga gacanta ku hayo markaan tagnay waa la iskhilaafay madaxweyne Axmed aan u tagay waxaan ku urniyo nimankii ma aragtay sababtoo nimanka waxaan rabay inaad asaga marka aniga culayska halkan culayska saarayo waa madaxweyne Axmed wuxuu igu yiri nimankii inta Fadi Yaasiin la hadda indha ma saareen maana is arag nimankana niman qowl lama aha buu yiri oo balan leh niman la isku haleyn karane ma aha buu igu yiri marka waxaan u arkay madaxweynuhu uu caraysnaa nin dhan oo la soo kaxiyo la yiri waan heshiinay oo maamulkiisa dhan la soo kaxiyo Kismaayo Muqdisho la keenay oo hadda la yiri shirkii xagga lagu soo heshiiyay saxiixi hadana shir koobaad la geli iyo qodobo koobaad iyo ciidan soo wareeji iyo nidaam ciidanka amniga soo wareeji wax soo wareeji maba ku jirin ba qorshe xagga lagu soo dhamaaday waa soo dhamaaday un baan waxa la rabaa xafladii meesha lagu qabsado madaxweynihii loo tago la kala seexdo heshiis koobaad marka Axmed waxay madaxa uga dhigtay uu xanaaqay marka waxaan arkay inuu xanaaqsan yahay muddo 10 bari la joogay oo dadku erayo badan ay soo kala bixinayaan leeyahay Axmed wuxuu 10 bari u joogay meesha waa loo diiday xataa inuu soo baxo baba wax saasa ma jirin wax rasmi oo loo diiday oo soo baxo laakiin maalinta uu rabay inuu soo baxaba nimana dhahayno anaga dhaxgalin hawsha noo kaadi sanadare u badan yihiin al-umum wixii waa socon waayay totally ma Axmed asagoo shirkii heshiiskii xagga lagu soo galay guul dareystay iyo noqday ani marka dadkii noqonay waan ku jiray waa maalinta adiga mid list baa la wataa Abdullaahi waa baxaysa marka waxaan ku uriniyo ma baxayo sababtoo ani meeshan waxaan u imid aan ku urin inaan la kulmo ninkaana hadii Axmed ay suuragal weyd inay wada kulmaan ani Kismaayo shaqana kama haynin dadka noqonay waa dadka wasiirada iyo xildhibaanada oo xafiis shaqada ka hayay marka fursadeyda bal inaan wax sii raadiyo oo meeshan aan joogo hotelkan deganaan ayaga bixinay bal maalmaha in ka dambeyn baan ku uri ninkan aan isku day markii inaan la kulmo Fadi Yaasiinka marka isagii aad la kulantay saad ku heshay kulankiisa marka waan waayay markii aan Axmed ka haray Fadi afar bariyo dambe aan sii joogay waan waayay guriga marka hotelkan deganaa waan ka soo guuray sababtoo gaarina ma haysanin wayna fogeed marka waxaan soo degay meesha Axmed uu ka guuray oo guriga sulub uu ahaa oo madaxtooyada ku dhex yaalay waxaa markaa joogay taliyaha nabad sugidda uu joogay wasiirkii markaa madaxtooyada xirsi gaani uu joogay oo markaa hawl loo reebay oo Axmedooba hawlo uu reebay
oo arrimaha ciidankii wax meesha yaalyaalay oo lagu heshiiyey inuu ka soo qaado meesha marka waan waayey ninka adigu fursad si aan la kulmo waan waayey kadib waxaan kusoo noqday aniga anoona ninka arag waxaan kusoo noqday baashil Kismaayo waay ka bacdi maxaa xigay marka muddo laga joogay kulli hadalkii horta waan niyad jabay hadalkii madaxweynahana markaan la kulmay uu dhahay nimankan niman la isku haleyn karo yaan u arkay inay xaqiiq tahay sababtoo markaas waxaan sii waday on culayska aan madaxweynaha saaray oo ahaa in dee fursaddii Jubbaland aan awalba 7 sano aan u daba socday inaan bal culays sii saaro si aan bal shaqadeedii aan shaqo meeshan munaasabka aan u helo sababtoo waajibna waan u lahaa dee Jubbaland aniga waxaa weeyaan dhibaatada u badan markii la qabanay dadkii ka soo gaartaan ka mid ahay aniga oo markii dhankan hawleegii iska wata oo muddo laga soo wareegay Muqdisho shirkeedii yaa maalin muddo dhowr bilood markii laga soo wareegay maalin waxaan soo wacay Cabdiraxmaan Dheere wuxuu igu yiri niyo waan ka xunahay safaraan galnay Muqdisho inaad timaado oo raadisayna waa noo sheegay haddaad maalmo sii joogi lahayd waan isii lahayn laakiin dee waad baxday markiiba kadibna dee waad garan mashquulka siyaasadda lagu jiro niyahowni waxaan rabnaa shaqadaadii aan ku ballan qaadnay waa la diyaariyey wax yaraa ka dhiman marka taliyaha balorta kula soo hadlaya marka taliya ayaga uma yeeraan amiirka kula soo hadlaya kuleeyihiin amiirka muxuu ka wadaa marka amiirka marka waa ninka dowladda iska leh markii la fasiro waa ninka dowladda iska leh weeye marka amiirka wuxuu ka wadaa Fahad Yaasiin uu ka wadaa waayahan ku iri 5 saac habeenimo Fahad Yaasiin ay soo wacay Cabdiraxmaan Dheere ma ismaqasheen buu yiri haa baan ku iri iyo waan ka xunnahay buu yiri ballanqaadan ku sameeyay dadka ballanta jabiyana ma ihi buu yiri really waxaan sababta hadda ku soo waxay tahay waxa laga yaabaa wuxuu yiri inaad u qaadato wixii aan ku dheheen waan ku diyaarinaynaa iyo waxaan ku diyaarinaynaa marka yaqiin inaad yaqiinsato aniga shakhsiyan ku soo waco yaan go'aansaday marka waxaan u baahanahay Muqdisho inaad timaado baan u baahanahay oo maaragtay aan kala hadlo shaqadaadii lagu diyaariyay kadibna maaragtay dad ku qanacday oo kaas dad ku qancin fursadan ku haytaas ay tahay waayahan ku uri waa adiga waliba adiga is soo dabar buu raaciyay ayaga invite gareeyay marka waxa laga rabaa tigidkii wax walba ayaga inay tigidkaas xafiiska tagtid ka qaadanay dhahan laakiin adiga is soo dabar macnaheedu waxay tahay nimankan totally ma rabaan wax cadayna inay ay reebaan leena tigid hadii lagu gooyo already nabasuuda tigid u soo dirtay qofkii la soo hadlayna qof makhraati joogo oo Kismaayo joogo oo nabasuuda aniga la soo hasho ninkaas tigidka la siiyo hadhow wuxuu noqonayaa radraac saa darteed nimankan macnaha adiga soo dabar bay dhahan aniga wax weyn uma arag marka de ninka baahida ay wado oo raba inuu shaqaysto waa aniga wax weyn ma ahan waa local international ma aha almost wax ka yar adigu $500 wax ka yar waan baxay laba bari kadib waan baxay waan safray really ana maamulkaygu uma sheegin sababtoo ah ninka wax u sheegay waa ninka shaqada hayo anu shaqo ma haynin nin xilligu raba safri karo fasax ka qaato ma jirin nin xilligu raba safri karo baan ahaa waan safray waxaan u safray Nairobi aan ka degay inta waxaan ilaalinay marka waan ogaa maamulka Jubbaland deegaankaygu way rajo weyn waan ka qabaa siyaasadda ilaa haddana waan ka qabaa laakiin waxaan ilaalinayay wax la yiraahdo qofka tashwiish inuu dadka galo baan ilaalinayay waan awood diyaarad toos oo ka degtay Muqdisho inay jirto dadka marka inta badan ruuxii Muqdisho ka degaba ama aad u aad arimo wadanka cabsi baa jirtay nin walba waxa leeyahay Muqdisho ka degsmaha waxa u yeeray ninkii Fahad Yaasiin iyo farmaajo u yeeray waa la soo miinay bari marka timaado dadkii ku dhawaa oo nin walba gees ku fiiran arkaysa dadka marka waxa la kala dhaxgeliyay niman waxa dadka dhex shaqeynay marka Nairobi aad aaday Nairobi baan ka degay isla galabtii waan ka duulay Nairobi isla galabtii Nairobi waan ka duulay markaan ka degay airportka aan u diray waxaan ku airportkan ku jira airportka nimankan xafiis ay ku leeyihiin markii xafiiska la soo hadleen waxay ku dhaheen ninkaas meesha jooga ha laga soo qaado gaari bil proof lagu soo qaaday waxa la keenay SYL horta waxa la hotelka lagu dajiyaa marka waxaan ku riniyo aniga idinkan marti idin hay SYL baa ii dhaanta hadii la yiraahdo sababtoo asxaabteedina waan kula kulmi karaa dadkaan arkay waa isku la kulmi karaa marka aniga nin waxaan iska ahaa iska socda waxaan ku socdana markaas shakhs iga horeeya ma ogi marka laakiin nin raba inuu targetkiisii bal wax ka qabto aan ahay meeshii markaan tagay galabtii maghrib baan ku aaday really marka waan yaran astay hotelkaas aan dejiyay si fiican baa la imaamusay 4 saac habeenimo horta majaran aaday timajaran markaan aaday SYL waxaan kula kulmay mid waa kan ku sheegay Axmed Carab mid la yiraahdo sheekada hore aan kugu daray
oo bahgari ah oo afhayeenkii ahaan jiray maaragtay amniga berigi hore kadibna xilka laga qaaday jubbalandna ka tirsan waa nin inta badan waxa weeyaan laba dhinac ka shaqeeya oo axmedna ula shaqeeya kana ula shaqeeya waa nin dadka la adeegsado waa dadka aan dhahno way source aan dhahno oo la adeegsado wey ninkii baan la kulmay inaan la kulmana ma rabin anoo SOL ka soo baxay oo u socda meel timaha lagu jarto baan is aragnay goormaa timid waan imid waan is arkaynaa waan ku iri laakiin inaan imid inaad qof u sheegto ma rabi baan ku iri waan is arkaynaa meeshaan deganahay hadhow tima jiro marka waan ku raaci buu yidhi anaa gaari wata waan ku raacayaa kii baa i raacay timaan soo jartay anoo timihii la ii jaray cabdiraxmaan dheeraa soo wacay wuxuu igu yidhi SOL aan joogaa ku aaway waxaan ku yidhi tima jaraan aaday laakiin 15 minute kadib waa kula joogaa gaarigaan soo qaatay waxaan yidhi degdeg ah hoteelka la ii geeyo hoteelkii baa la keenay asagoo meesha gaari burburu foto gudaha ku jira kama soo degin gaariga staafkiisii baa bannaanka taagan waa imid bas gaariga albaabka dambe laga furay cabdiraxmaan dheeraa albaabka dambe ku jira waa sheekaysanay gudihii ka soo baxay baakinkii baan tagnay baakinkii oo SYL baabuur badan baa ku baakiman waa baakinkii koowaad ee laga soo galo laba baakin inuu leeyahay filayaa baakinkii koowaad baabuurta ayaan tagnay gaarigu meel reefis geliyey yarkii daroolka wuxuu ku yidhi deg gaari ku dhex jirta labadan gaari ku dhex jirnaa gaarigu waa istaaran yahay oo mukiifka daaran yarkii wuu dejiyey albaabka la noo soo xiray waa sheekaysanay marka wuxuu igu yidhi niyahow intaan Fahad Yaasiin u tegin waxaan rabaa inaan arrimo muhiima kala hadlo waa xaqiiqda inaan hadal ku darana ma rabo hadal inaan ka dhimana ma rabo wuxuu igu yidhi horta niyahowni waxa weeyaan Jubbaland markii la yiraahdo maanta xuquuqda aad ku lahayd qof kule ma jirin aniga naftii shakhsiyan ahaantayda bari aan kismaayo imid Axmed maalin baan waxaan ku arkay buu yidhi adoo miiska meesha cashada fadhiya qaybta dambe dadka ay fadhiyaan Axmed baan la fadhiyay buu markaas waxaan ku iri buu yidhi Axmedoo ninkaa meesha fadhiyo soo ninkii Ciise la dhashay maaha buu ninkii Cabdullaahi haa buu yidhi Axmedoo ninkaas maxaad u shaqo gelin lahaday sababtoo ninkaas walaalkiisi buu nin soo shaqeeyay tan iyo kaambooniintii walaalkiisna waa geeriyooday adigana inta badan dadka waxa weeyaan waa dad badan oo geeriyooday oo ehelkoodii shaqada wada siisay oo hebel sida Doobley ilaa iyo meel heblo dad baa meel wada geysay ilaa haddana way joogaan qaar baa bangiga geysay qaar baa adigu waxba u sheegay marka ninkan maxaa ku dhagan oo shaqo u siin laadahay waa aqoontiisu leeyahay waa nin luqadii yaqaan waay khibrad maxaa u siin lahaa wuxuu igu yiri buu yiri ninkan asagii walaalkiis waa isku mid waa isku fikir totally runtan ku sheegayo inaan shaqo siiyo yaa ma rabi laakiin gacanta inaan ku hayaan rabaa uusan iga fogaan Cabdiraxmaan gaas ku dhahay Cabdiraxmaan gaas ay dhahay waxaad ku garan marka Cabdiraxmaan wuxuu yiri erayga markuu yiri runtii waan naxay buu yiri waxaad ku garan buu yiri marka waxaad ku garan buu yiri dhalinyarta la joogta Axmed hadda magacooda inaan sheega ma rabo hebel buu yiri madaxtooyada dhabarkeeda guri ka dhistay waa ragii isku levelka aadeen buu yiri hebel buu yiri jagadaas uu hayaa hebel marka ragii aniga saaxiibaday ahaa iyo wada sheegay waxaan ku yiri waan ogahay Axmed inuu gacan bidix igu hayo waan ogahay uu gacan bidixaynayo waxaan ku garanayaa baan ku iri shaqooyin badan oo soo baxoon kala hadlay buusan fursad ii siinin inaan aniga maaragtay shaqadaas ka afgareeyo oon awooday inaan ka afgareeyo nabad sugidii isbedel ku sameeyay waxa weeyaan asagoo ii ballan qaaday inuu isbedel igu daray muusan igu darin waxaad ka socotid maamulkaas waan ka soo waayay Axmed Kaane kulli asaga ilaaha yaqaan laakiin aniga waa nin aan waa waalidkay waana madaxweyne waa hogaamiyahayga hadda inaan asaga ka hadlo Muqdisho maana u imaaneen aniyo marka uu sii wada wuxuu yiri waxaan ka wadaa buu yiri bahdilaada kugu haysata Jubbaland runtii qof ay ku haysta ma jirto aqoonta aad leedahay nin shisheeye oo shalay isbarateen baa wuxuu gartay ka dhax arkay in aqoon leedahay oo haydiis uu kugu dari karo marka Fahad ka wadaa way marka fursadaas uu ka faa'iideysanaya shaqalaanta ku haysay marka wuxuu raa maskaxda inuu su'aalo geliyo tan kale wuxuu sheegayna waa wax markaad aragto ayaan loo xaqiiqa sababtoo aniga intaas 7 sano xilliga Ciise uu dhintay 2014 ka ahayd bishii labaad ilaa hadda shaqo la'aan ahayn maamulkii aan yaraanteedii ilaa kaamboon la soo shaqeeyay waa maamulka Axmed fursado badan oo soo baxayna Axmed waxa weeyaan uu yara bidixay marka aniga waxba uma arki jirin laakiin markuu asaga hadluu yiri anaa kala hadlay oo wuxuu igu yiri ninkaasi shaqo ma siinayo
waa dad madax adag hadhow haddii shaqo loo dhiibo meela uusan meela la rabay in la galgalo yuu geli macnaha wuxuu ka wadaa buu yidhi macnaha nin hadhow igu yeelan doona xidido oo dowladda walaalkay ciise waxaa lagu yaqaana buu yidhi macnaha dowladda shisheeye uu xiriir la lahaan jiray oo nin baawar lah buu ahaa marka axmed marka tabtaasuu ku ilaalinayaa buu yidhi uu kaa cabsi qabaa mana raba inaad horumar gaarto marka wuxuu ku yidhi ninkan aad shalay isbarateena fursad ninkan aad shalay isbarato isku ehelna aadeen baa kaa dhex arkay buu yidhi inaad maaragtay wax kusoo kordhin karto dadna wuxuu yidhi labaa loo kala qaaday dadna waxaa loo arkaa inay ayaga ay baahi wado oo shaqadu ayaga u baahan yihiin dadna shaqada u baahan laakiin waxaan u aragnaa buu adu shaqada inay ku baahan tahay qaranka runtii waan kusoo dhawaan ninka aan kuu wadane waa nin runtii haddaad la saaxiibto rag aqoon ah buu yidhi aniga soo ma aragtid buu yidhi waxaa weeyaan nolosheedii systemkayga waa aragtaa gaalid buruufaan wataa baarlamaanka shuqul iyo shaqo kama lihi waa kaasaan la shaqeey safraan la galaa ninkan haddaa is aamintaan waxaa weeyaan gacmahagaad dhunkanaysaa waxaan ku iriniya walwaayahay waan arkaynaaye meesha aan tagno intii markuu maskaxdeedu geliyey marka adiga inta aad la fadhiso marka maskaxdaadu dhaqay maskaxdeedu waxa isku day inuu dhaqo kugu abuuray marka waxyaalaha uu sheegay runtii waa wax xaqiiqa jira saa ay tahayna aniga ma nin aqoon leh qofka markuu aqoon leeyahay lagama yaabo qof shakhsi wuxuu dhaho ilaahu muu dhib xaaladda aad ku jirto uu ka hadlo inaad maaragtay la hada raaca noqotid alcumuum marka waan baxay 5 saac habeenimo ahayd waan la qaaday meeshii baan aniga asagoo israacnay meeshii baan tagnay gaari baan ka degnay meesha iskaanka yaan dhex marnay moobeeladii baan meel saa u dhignay waa ka gudubnay albaabka kaliya ma dhigay masaal asaga uu dhigay ninkaasi waxa weeyaan ama saaxiib la noqo ama walaal la noqo ama kii ugu la noqo ninkaas wax ka yaab dadka ugu la saaxiibaa wuxuu rabuusi laakiin never inuu barnaamijyada Nobelka iyo waxaas ka gorgorta ka galo marka adiga iyo Cabdiraxmaan Dheer isku si aan idin baaray isku si baan noo baaray isku qaab baan u marnay meeshii baan tagnay marka laba albaab saddex albaab oo suulka lagu furo bulletproof meesha jirta albaabka waa first time aniga aan tago xaruntaas barigii hore oo Bashir Goobe ragii la shaqeyn jiray oo maamulka Jubbaland ka tagay saa ma ahaan jirin ninkan isbedel ugu sameeyay meesha waxa loo dhisay si maaragtay guryaha oo soo ku jira waa bulletproof way nin baa marka taagan irida oo sida u taagan oo sida military u taagan iridu suulka saa ugu furay waa laga furay waa galnay irida kale nin kala taagan labada nin waxa weeyaan waa kala shaqo weey ninba kan fura kan fura suulka kale nin kala furay oo suulka saaray albaabka kale albaabka saddexaad waa ka ugu weyn oo asaga uu ku jiro asaa maamula anaha meesha uu fadhiyo yuu ka maamulaa asaa furi kara waana waa bulletproof waa sida hay'adaha isticmaalaan marka qol waxaa jira marka xafiisku fadhiisin dago qol yar oo ku jiro meeshana oo saddex mukayf ku xiran kaamirooyin ku xiran saddex kursiyo cad taala qolkii buu ani yiri Cabdiraxmaan Dheer gal gudahan galaya kadib waan ku imanay alcumuum markaan tagay meeshii on galay oo la ii yeeray adoo almost 15 minutes 14 minutes wuu ii yeeray waan soo galay Cabdiraxmaan Dheer halkaas uu kala fadhiyay Faad Yaasiinku xafiiskiisa aad u weyn yahay waa qurux badan yahay xafiis qurux badan weey marka asoo halka fadhiyo runtii wuu istaagay macnaha si xurmo leh wuu istaagay wuu soo dhaweeyay wuxuu igu yiri markaan fadhiistay soo dhaw waa noo timid saqadnimo soo meel fiican soo ma degan okay maxaad iga aaminsan tahay hada ugu horeeyay su'aasha koobaad aniga Faad Yaasiina maxaad iga aaminsan tahay bal ii sheeg sababtoo ah safarka Soomaaliya ka timid waxa aniga shakhsiyan iga aaminsan tahay su'aasha wali kuma weydiinin buu yiri I need inaan ogaado Cabdiraxmaan waa la fadhiyaa markaa oo nala fadhiyaa wallahi horta waxaan ka aaminsanaa ku wari nin fursad helay oo isku duba dhacday oo awood dhan ciidan iyo dhan dhaqaale isku saaran tahay horta inaad tahay waxaan kaloo aaminsanaa ku wari nin aan ka dhax arko aniga mustaqbalkayga sababtoo ah hadda markii ilaahay ka sokow ilaahay wax walba sameeyaan ku wari laakiin marka Soomaaliya la joogo waxa rabtaa baan ku wari adiga waxaad aaminsan tahay inaad wax walba aad sameyn karto saa darteed anaga waxaan aaminsanahay inaan aniga waxa aan rabo aad ii qaban karto aad ii fudaydin karto ama Soomaalnimo iigu fudaydi ama siiba iigu fudaydi marka laakiin waxaan ku arkaa baan ku wari nin awoodii isku dhameystiran kartina leh aqoonteedina leh waqti badan uu soo shaqeeyay inaad tahay baan ka aaminsanahay adigu amaan baan u galay
marka wuu runtii waa ka gudub buu u qoslay wuxuu hadalka labaad ku xijiyay waxay ahayd waan ka xumahay aadan uga xumahay wixii kugu dhacay runtii waan yaabay wixii kugu dhacay markuu waxaan siri ma wax igu dhacay jira markaasuu yiri waxaan ka xumahay buu yiri adigoo Jubbaland u dhashay saraakiishii waxa weeyaan deegaanka laga yaqaan inaad ka mid tahay ehelka hagana ay meesha ku baaba'een walaalka hebel magac uu hayaa walaalka hebel oo ku dhintay xoreyntii Jubbaland walaalka Ciise qaabka loo dilay oo waliba shaki ballaaran uu ku jiro waad ogtahay intaas sano laga soo wareegay ilaa haddana maanta shaqo la'aan baad tahay qarankan maanta ku yeer inuu shaqo siiyo Axmed fursado badan buu hayaa dad badan buu hormariyay dadku uu hormariyay dad aqoon ahaan ka waxaysanta way maxaa kalif Axmed ma beel ahaan buu ku target gareysanayaa oo waxaan maqlay buu yiri beesha asaga uu ka soo jeeday iyo beeshaada inaysan wax calaaqaad lahayn oo aad yihiin dad macnaha reer hebel aawadatiin laakiin waxa weeyaan inaad god ku jiro kana god uu ku jiro saa darteed uusan rabin inuu qof reerkaas uu kor u soo qaado ama waxa laga yaabaa kulaha inuu adiga shakhsi ahaantaada ka arkay inaad sida walaalka oo kale aqoontiisa leedahay oo raba inaad ka cabsan inaad ku ballaarato ama inay dakana jirto qofka arintaas oo kale waxa sameeyay qof dakana ay ku maqan tahay sababtoo dakana waxaan ka wadaa buu yiri walaalka hadda waa dhintay walaalka Muqdisho markuu ka tagay nin guuleysto ahaa buu yiri safarkiisa u dambeeyay waxa xustaa 2014kii waan saragnay buu yiri Ciise waan salaanay saaxiibana ahayn buu macnaha Alziro waxa weeyaan yaa ku xirnaan jirtay markii Maxamed Cabdi waxa asaa keenay buu yiri barigi ay xisbi islaamka iyo shabaabka isdhex joogeen ilaa wuxuu geeyay buu diin soor Ciise maraan telefoon ku hadlay maraan kulanay waan salaanay Ciise safarkiisa Muqdisho u guuleystay buu yiri u dambeeyay 2014kii gaalada dhan buu la kulmay wuxuu helay ballanqaadyo system xiriiryo helay nin guuleysto ahaa Axmedna nin Kismaayo joogu ahaa markuu noqday Ciise dilkiisu soo degdegay ma dhicin buu yiri mission inta la egsaa in loo fuliyo cid baaritaan samaysayna ma jirin buu yiri adiga qaabka lagu fogeeyayna adiga oo de walaalka iyo dadka eelka ay ku baabaa meesha agoon ay jirto in maaragtay waxa weeyaan fogeynta marka waxa dhici karta buu yiri qof waxa sameyn kara ka soo qaad buu yiri aniga hadaan aabaha dilo kuma soo dhaweysanay adiga wax walba dhaco kuma soo dhaweysanay the same ninkaana kuma soo dhaweysanay mana ku soo dhaweysan doona sababtoo ah ku soo dhaweysanay waxna uu ku qaban lahaa kiraad ku jirtaa buu hadda gurigaaga marka wuxuu maxkamadeynayaa Axmed Madoobe maxkamadeynaya adiga wuxuu yiri kiraad ku jirtaa abuuraya marka anigu shaki u abuuraya dilka walaalka lu ku yeelan karo adiga wuxuu yiri hadda kiraad ku jirtaa hebel iyo hebel waa la ii sheegay buu yiri waa rag ka yara adiga guriye wada leeyihiin buu yiri ilaa haddana Axmed uu og yahay guriye inay leeyihiin baawro ay sameysteen adiga kiraad ku jirtaa waa kiradaadii maalin walba in kirada maamulku ka bixi Axmed Allah hoos fadhida ka soo gudub buu yiri wuxuu kaloo yiri ilmihi agoonta waan ka warhayaa buu yiri Axmed lacagta uu siiyo waa 5 caruura waa qaangaaruu yiri wuxuu siiyaa buu yiri awal 500 uu siin jiray buu yiri $500 macal xaaskii hore uu Ciise qabi jiray ayadana Muqdisho joogto 500 buu siiyaa buu yiri hadda markii culaysay soo wajahay cunaqabataynta ay dhacday oo maamulka iska hor imaadeen uu ka dhimayo $250 ilmo hal cunug iskuulkiis fiigiisa ma dhan uu yiri Ciisana markii la soo Axmedoobana markii la soo daayay buu yiri 75,000 buu Ciise farta ka saaray buu macnaha Ciise Axmedoob markii laga soo daayay xabsigii Ciise rag muqaamada hogaaminayo Kamboni dowladda intuu ugu yimid 75,000 siiyay buu yiri isku dhis kadibna xoog intuu ku kaxeeyay buu Kismaayo geeyay buu yiri asagoo tunka ku wada shabaab oo diidan oo ninkan murtad weeyay haddana intuu tun ku qaaday Muqdisho geeyay buu yiri si uu uga gado maamuladii markaa jiray Ciise wuxuu u sameeyay ma jirin buu yiri laakiin asaga waxa weeyaan inuu ruux walba dhaho waan biilaa ilma Ciise mas'uuliin badan kala hadlay buu waan biilaa marka waxaan ku yiri ka soo gudub anu marka wuxuu rabay inuu maskaxdeeda homework u diro macnaha wuxuu ka hadlayana really markaad fiiriso adii naftiga qofka markaad la kulmayso qof aad soo akhrisay sirdoonku waxay sameeyaan qofka ay rabaan inay dan kale yihiin horta dadka way xogtiisa rasmiga iyo bay marka ogaadaan iyo waxa uu ka tabanay dadka uu la joogo kadib marka adiga meelaha aad ka nugu sheegay arkeen meesha sanay tahay exactly marka xogtaasna markii uu ka helay kula tahay xogtaas wallahi deeniyo maamul horta waa lagu dhex jiraa tan kale
aniga asxaabta raggan la ahaa dhammaan ayaga u shaqeeyaan oo dadka aniga xataa ishir qoolay ka mid ahaayeen waan kaaga waa sheekadii ku jirtaa marka inta saa hadlayo marka inta asaga hadlay waan dhageysta waxaan ku uriniyaho horta waan runtii jirkay macyaalaha markuu ka hadlay nin dhanoo walaalkay gacantiisa walaalkay wuxuu ahaa reer dhan gacantiisa midig si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid